munaasabadan ayaa xariga looga jarayay xarunta biyo-qabadka degmada Boondheere waxaana iska kaashaday hirgelinteeda shacabka iyo maamulka degmada Boondheere gobolka Banaadir iyo hay'adda Safe Construction Company. xaruntan ayaa la bilaabay dhismaheeda 3 bishii 3 2019 waxaana loogu talagalay in ay qabato biyaha xilliyada roobabka ay ka da'ayaan magaalada Muqdisho isla markaasna loo yareeyo khasaarihii ka dhalan jiray daadadka. gudoomiyaha degmada Boondheere Saynab Yuusuf Wehliye ayaa u mahad celisay shacabka Boondheere iyo maamulka gobolka Banaadir iyo cid walba oo gacan ka geysatay hirgelinta xaruntan. reer Boondheere haddaan nahay maanta waxaa farxad noo ah inaad xariga ka jarto ciladihiina haystay dacdi maxay ahayd ishaag biyaha ku soo fatihi jirtay Boondheere warti in maxaan ku ira maanta aad xariga ka jarto sharafay noo tahay guulay noo tahay gobolka Banaadirna guulay u tahay degmada Boondheerena guulay u tahay mudana gudoomiye ilaahay baa mahad iskale waa tilaabtii ugu horeysay oo maxaan ku ira oo gobolku qaado waxaan u mahad celinaa gobolka Banaadir iyo duqa magaalada ku tiimkiisa waxaan u mahad celinaa oo kale DRC oo juhdi badan gelisay halkaan oo habeen iyo maalin naga tagin waxaan u mahad celinaa shacabka reer Boondheere oo si ilaahay og yahay aan maalin iyo habeen seexan oo u taagnaa arintan oo contribution ku darsaday oo haddana shaqadii ilaa laga gabagabeeyo ay saa u taagnaayeen odayaashiisi iyo waxgaradkiisa ay saa u taagnaayeen. gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiido ayaa ugu baaqay shacabka Boondheere inay ilaashtaan xaruntan. waxaan rabnaa dadka shacabka ee degmada ku dhaqan wartaan maanta markii la idin sameeyo wixii ka dambeeyay ilaalinteeda shacabka Boondheere ayaa iska leh waxa la inka rabaa inay mas'uuliyad iska saartiin inaan qashinka lagu soo tuurin inaan dadka bulaacadaha xaafadaha ku soo xiranaya inaad ka ilaalisiin wartaan laga bilaabo maanta waxa iska leh reer Boondheere waxa la rabaa inay ilaashadaan annaga waxa naga maqan lahaanshihii ayaa Soomaalida ka maqan laamiya la dhisaa nima jabinaya ninkii dariska la aha uu fiirina ma dhahayo war laamigan maxaa u jabinay wartaan waxa la rabaa dadweynaha xaafadan ku nool qof kasta ama qashin ku shubaya ama biyo kale ku soo xiranaya ama bulaacad ku soo xiranaya inaad ilaalisiin. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yiriiso oo xariga ka jaray xarunta biyo-qabadka ayaa tilmaamay in ay wax ka tari doonto yareynta khasaarihii ka imaan jiray daadadka roobabka. waxaa maanta sharaf weyn ah in halkan aan u taaganahay Boondheere in aan xariga ka jarnay wartii oo biyaha qabanaysay oo aan muddo ka shaqaynaynay sidii bulshada degmada Boondheere ay uga badbaadi lahaayeen khasaaraha ay roobabka geystaan. tanna waxay ku timid juhdi maamulka gobolka iyo shacabka degmadaba iyo maamulka degmada ay u galeen iyadoo la dhageystay baahiyaha ay qabaan shacabka. waxaan ku faraxsanahay shacabka marka la tashtayna ay dhaheen caqabadaha ugu waaweyn ee haystay degmadu inay tahay roobabku yimaado inay guryo badanna khasaare u geystaan dadna ay ku dhintaan. roobabkii hore waa la socotaan ilaa 7 qof oo geeriyootay. juhdi waxaan u galnay inaan sidii lagu badbaadin lahaa khasaarahaas laga shaqeeyo sidii bilicda caasimada loo soo celin lahaa laga shaqeeyo. Boondheere oo libaax shacabkeedana maanta u jeedin sidii ugu soo bambaxeen ay raaligan uga yihiin annagana maamulka shacabka nahay waxaan naga go'aan waxay tahay shacabka iyo sidii loogu adeegi lahaa loogu shaqeyn lahaa. waa sidoo gudoomiye u sheegay Fiidow waxaa la rabaa hawshan juhdiga la geliyay qarashka faraha badan ku baxay ujeedadana tahay in shacabka laga badbaadiyo khasaaraha haddana waxaa la rabaa dadku inay ilaashadaan ma aha war biyo isaga jiro qashin ku soo shub ma aha waxay u baahan tahay ilaalin. qof walba gurigiisa hortiisa haddii uu dhisana waxaa imaan lahayd in biyahan bay naga yaraan lahayn. marka waxaan rabnaa qof walbana kaalintiisa inuu ka qaato dib u dhiska dalka waa wax la wada leeyahay. caasimadan si ula tartan caasimadaha adduunka waxyaalaha laga rabo waxaa ka mid ah koow waxyaalaha danta guud qiimo weyn ah qarannimada ayay dhaheen haweenka hadda qarannimaana deeqda shakhsi walbaba tiisa du ka fikiro wax noo shaqeynaa malaha. marka danta guud aan ka wada shaqeyno nabad iyo nolol nabada deeqda. Boondheerna waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa shacabka iyo maamulka degmada sida ay runtii arintan ugu dhaganuglaayeen ugu dhabar adeegeen uga shaqeeyeen. maantana waxaan rajaynaynaa wixii ka dambeeyo inaan dad badan oo nooga geeriyoon lahaa roobabka iyo khasaarana u geysan lahaa inaan ka badbaadin doono. badbaado ilaaha iska leh laakiin annaga waxaan la faray dadaal waay
marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in dadaalkan aan sii wadi doono degmooyinka kale iyo waraha kalena oo ayagana qorshaha socdo inaan dhammaystiri doono waxaan dhammaystirnay qorshihii master planka oo magaalada oo dhan oo aan mar dambe biyo u fariisan lahaayeen oo jidad waaweyn oo highways iyo buundooyin iyo dhammaan biyahan ay badda lagu shubi lahaa qorshahaas waa qorshe dhammaystiran oo aan diyaarinay waxaan rabnaa fayska koowaad ayaa wuxuu ka mid yahay horta badbaadada oo warahan kadibna war walba waxaa lagu xiri doonaa tubooyin oo dhulka hoostiisa mara xilliyada roobabka ayaa waxaa ka dhasha daadad kuwaasoo khasaare u geysan jiray shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir